halow asxaabta ku xihan janaalka sahanwade maantay waxaan halkan uga hadli doonnaa qodob aad iyo aad u muhiima qof kastana uu jecel yahay inuu wax ka ogaado waayo waa u muhiim qof kastoo aadanaa horta waxaa jira arrin la rabo inuu qof kasta baaris ku sameeyo arrintaasoo ah qofku inuu ogaado nooca uu yahay dhiiggiisu ma e balas ba mise e maynis mise waa b mise waa o balas waa noocyada ugu caansan dhiigga bini'aadamka dadka inta badan waxay ogaadaan dhiiggooda marka looga baahdo oo ay isbitaal tagaan isagoo ku caawinayo qof walaalkiisa oo bukaana balse way yar yihiin qof inta isxilqaaba tago isbitaal ama farmashi si uu u ogaado nooca uu yahay dhiiggiisu arrinta ay muhiimka u tahay inaad ogaato nooca uu yahay dhiiggaagu waxaa waaye inaad ogaato waxyaalaha aad ku habboon tahay sida shaqooyinka dabeecadaha dhiiranaanta qofka iyo waxyaalo kaloo fara badan oo aan maanta halkan ku sheegi doono haddaba si aad ugu xirnaato janaalka sahanwade oo soo gudbiya arrimaha noocaana iyo arrimo kaloo fara badan sabskrayb janaalka iyo like share si uu u gaaro bulshada u baahan xogtan wixii aragti ahna hoos noogu reeba mahadsanid walaal haddaba dhiigga bini'aadamka ayaa u kala baxo 3 nooc oo waaweyn iyo faracyo hoos yimaada iyaga saddexdaas nooc ayaa waxay kala yihiin a b iyo o dhiiggu waa shidaalka qofka bini'aadamka ah la'aantiisna qofku ma noolaan karo haddaba ayadoo ay sidaas tahay ayay dadku ku kala duwan yihiin dhiigga iyo noocyadiisa balse halkan waxaan kugu soo gudbinayaa qof walba nooca dhiiggiisa uu yahay dabeecadaha uu qofkaasi leeyahay iyo raashinka qofkaas ku habboon inuu cuno iyo xanuunnada qofkaas ku dhici kara iyo shaqooyinka ku habboon qofkaas inuu qabto iyo wixii soo raaca intaas waxaana diiradda saaraynaa 3 nooc ee ugu waaweyn qofka sida dhiigga la yidhaahdo o a iyo b waxaa jira daraasado badan oo waqti dheer laga samaynayay dhiigga iyo xiriirka uu la leeyahay qofka waddanka ugu badan oo laga sameeyey daraasadahan waa waddanka jabaan marka qofka la shaqaalaysiinayo waxaa la baaraa nooca uu yahay dhiiggiisa kadibna waxaa loo dhiibaa shaqada uu ku habboon yahay qofkaas walaal macluumaadkan maahan wax la dhahaayo waa wax u dhacayo sidii la rabay marmar waxay noqon karaan sax marmarna waxay noqon karaan qalad laakiin siday u badan tahay waa wax sax ah oo daraasado badan laga sameeyey waddamo kala duwanna laga sameeyey waana la isku raacay madow iyo caddaanba haddaba waxaan soo qaadanaynaa qaybta koowaad ama qaybta ugu horrayso waxaana sheegi doonnaa dabeecadaha qofkaas shaqooyinka uu ku habboon yahay inuu qabto cunnooyinka u wanaagsan caafimaadkiisa cuntada aan u wanaagsanayn caafimaadkiisa waxaan soo qaadan doonnaa dadka nooca dhiiggooda uu yahay e dabeecadaha dadkan waa dad jecel wax qoridda mar walba inay wax qoraan iyo sidoo kale akhriska xagga markay tiifiga daawanayaan waa dad jecel inay daawadaan barnaamijyada qosolka ah waxay jecel yihiin deegaanka dabiiciga ah sida buuraha meelaha barwaaqada ah sida kaymaha indhaha u roon oo cidlada ah shimbiraha iyo waxyaalahaasna ay ka ciyayaan ama ka dhawaaqayaan sidaad u fahmayso af Soomaaliga ma ahan dadka qaladka badan oo dadka aflagaadeeya oo dhacdhaca badan waa dad degan oo nabadda jecel sidoo kale waa dad xarago badan oo labis badan sidoo kale waa dad aad u xishood badan sidoo kale waa qof oofiya ballanka uu galo mana jecla inuu ballamo badan galo qofka eeda ah markii la fiiriyo xagga maskaxda waa dadka ugu maskaxda badan baa la yidhaahdaa caalamka sidoo kale dadka eeda ah waxaa ka soo baxa dadka hoggaamiyaasha ah xagga seexashadana waa dad seexda in yar 5 saacadood ayaa ku filan dadka eeda ah xagga guurka waxaa la yidhi dadka eeda ah waxaa ku soo beegma dumar foolxun nasiib uma lahan dumarka quruxda badan waa dad naxariis badan dantoodana ka hormariya danta dadka kale waa dad inta badan aan shucuurtooda laga dareemin si kastay u murugaysan yihiin ama u naxsan yihiin waxaa ka muuqda deganaansho dadkani waa dad inta badan si fiican u dhegaysta dadka kale badanaana saaxiibo badan si ay dadka kale u jeclaadaan darteed ayay shucuurtooda u qariyaan ka warran dhinaca jacaylka dadkan waxay aad isku fahmaan dadka ay isku dhiigga yihiin iyo dadka dhiiggoodu yahay a b kuwaasi waxay ahaayeen dabeecadaha wanaagsan ee dadka ah eeda haddaba waxaan u gudagelaynaa dabeecadahooda xunxun oo ay leeyihiin dadka eeda ah waa dad carab badan waa dad dabeecadahoodu aysan fiicnayn sidoo kale waa dad walwal badan xitaa markuu taleefanka ku soo dhaco waxay cabbaar ka fikirayaan qofkan wuxuu u sheegi doono weliba markay soo wacaan dadka u dhowdhow oo qaraabada ah isagoo ka fikirayo talow muxuu kuu sheegi doonaa qofkan sidoo kale waa dadka haddii ay daraagis isticmaalaan sida jaadka iyo kafeega iyo wixii la mida aanan seexan hurdana ay ka soo dhicin sidoo kale waa maxay raashinka ku habboon inuu isticmaalo qofka leh dhiigga eeda
dheefshiidka Ilaahay wuxuu qof kasta ugu abuuray si gooniya. Marka dadkan dhiigoodu eeda yahay, waxaa aad ugu fiican baa la yiraahdaa qudaarta. Waa dad dhiigoodu aad ugu shaqeeyo cunida qudaarta, jirkooduna ku habboon. Sidoo kale, waxaa ku habboon dadkan eeda dhiigoodu yahay inay cunaan hilibka cad sida malayga, digaaga iyo wixii la mid ah. Sidoo kale uma wanaagsana dadkan raashinada kala duwan ee isku qasan. Qofku inuu cuno hilib haddana digir uma wanaagsana, waayo calooshooda cilada ayaa ku badan dadka eeda ah. Sidoo kale dadkan ma xiiseeyaan caanaha iyo cunida hilibka badan, sida hilibka geela iyo wixii la mid ah. Xanuunada dadkan ku dhaca waxaa u badan xanuunka kansarka. 20kii qofba 2 ayaa qabta kansarka. Waa suuragalnimo sida daraasadu ay sheegayso. Dadkan waa dadka badanaa qoraaga noqdo iyo xisaabyahanada. Waa dad aad u maskax badan. Intaas haddii aan uga gudubno waxa la yiraahdo blood type A, waxaan u gudbaynaa nooca labaad oo la yiraahdo B. Noocan la yiraahdo B waxaan sheegaynaa marka hore waxyaalaha ay ku fiican yihiin. Marka hore, waa dad dabeecad wanaagsan, sidoo kale waa dad dhaqan wanaagsan. Sidoo kale iyaguna waa hogaamiyaal sida noocii hore oo eeda. Sidoo kale waa dad maareyn kara caqabad walba ku timaada. Waxaa kaloo lagu tilmaamaa dad gaaro hadafka iyo himilada ay leeyihiin oo aan ka daalin. Sidoo kale waa dadka markay telefishinka daawanayaan fadhiya waqti dheer, iyagoo daawada wararka dhaadheer sida documentary-ga iyo waxyaalaha lacaynka. Laakiin qofka eeda ah intaas uma dulqaadan karo inuu fadhiyo. Waxyaalaha shactirada buu jecel yahay oo waqtiga gaagaaban. Sidoo kale waa dad aad ugu fiican saaxiibtinimada. Waana dad habdhaqan fiican leh. Sidoo kale waa dad inta badan naftooda sharaxo oo dadka kale u sheega waxa ay yihiin iyo waxa ay qaban karaan. Waa dad ismuujiya. Sidoo kale xagga guurka markay timaado waxay nasiib u helaan dumar aad u qurux badan. oo dhankaas waxay uga fiican yihiin nooca la yiraahdo oo dumar foolxun ku soo beegma. Inta badan waxyaalaha ay ku xun yihiin waxaa ka mid ah dadka biida ah. Waa dad haddii aad wax yar isku qabsataan durbadiiba xanaaqaya oo aan dulqaad lahayn. Sidoo kale waa dad hilmaan badan oo durbadiiba wixii ilooba. Sidoo kale waa dad aan fiirin badnayn, ma ahan dadka aadka u fiiriya shakhsiga kale. Sidoo kale waxaa la yiri markay wax qabanayaan xil iskama saaraan waxaas si sax ahna uma qabtaan. Haddaba cuntada ku habboon waa maxay noocan dhiigoodu yahay biida? Waxaa ku habboon caanaha iyo wixii la halmaala. Sidoo kale cunooyinka qudaarta ahna way ku fiican yihiin jirkoodu. Sidoo kale shaaha riinjiga ahna waa ku fiican yihiin. Haddaba xanuunada ku badan gruubkan hala yaabin. Waxaan waa daraasad si toos ah loo sameeyay. Xanuunka ku badan ayaa ah xanuunada maskaxda sida waalida iyo neerfooska. Sidoo kale shaqooyinka ay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah sirdoonka iyo baarista cilmiga. Sidoo kale farshaxanka aad ay ugu fiican yihiin dadka noocoodu yahay biida. Cilmi nafsiga dadka yaqaan iyaga ayay ka soo baxaan badanaa. Haddaba waxaan soo gaarnay noocii ugu dambeeyay oo ay Soomaalidu aad ugu badan tahay. Waa nooca la yiraahdo owga. Waa nooca marka la fiirsho probability ahaan Soomaalidu aadka ugu badan tahay. Waxyaalaha ay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah waa dad isku kalsoon in ka badan inta ay isku kalsoon yihiin dadka kale. Sidoo kale waa dad bulshaawi ah xagga dhexgalka bulshada. Sidoo kale waa dadka caanka noqda. Sidoo kale waa dad soo jiidasho leh. Waa dad adkaysi badan, jirkooduna dhaawaca u dulqaadan karo. Sidoo kale waa dad qaabka jirkoodu aad u fiican yahay xagga isteelka. Waa dad maareeya mushkilad walba ku timaada. Sidoo kale waa dad nasiib badan. Nooca dhiigga ow sidoo kale waa dadka ugu hurdada badan adduunka. 24 saac ayay hurdi karaan. Qofka leh dhiigga owda meel walbana wuu ku gam'aa. Xitaa haddii uu daraagis cabo wuu gam'ayaa. Sidoo kale dumarka ugu quruxda badan dunida ayaga ayaa guursada ama ku soo beegmaan. Waayo kan biida ah waa qof xanaaq badan oo aan dabeecad lahayn. Sidoo kale eedana isna waa la mid oo dabeecad ma leh. Waana sababta keentay inay dadkan guursadaan dumarka ugu quruxda badan dunida. Haddaba waa maxay dabeecadaha xunxun oo ay leeyihiin dadkan owda ah? Waa qof jecel inuu meel walba isku qorqoro sida xafladaha. Wuxuu jecel yahay inuu xiriiryo ka noqdo. Sidoo kale waa qof aan la saadaalin karin dabeecadihiisa. 10 qof ayuu la socdaa, midba weji gooniya ayuu kula soconaya. Sidoo kale waa dad muran badan. Kalaam yar haddaa isku qabsateen maanta oo dhan muran kama dhammaanayo. Sidoo kale waa qof dhexdhexaada mar walba, qofna garta ma siiyo. Labada dhinacba uu la jiraa haddii ay dad isdagaalaan ama isqabsadaan. Haddii aynu eegno dhanka cuntada ku fiican, dadkan waa dad jecel hilibka geela iyo ariga yacni. Waa dad aad u jecel cunida hilibka faraha badan. Sidoo kale jirkooda wuxuu ku habboon yahay inay cunaan
cunnada baalka leh sida galleyda, misagada iyo waxyaalaha la halmaala. Sidoo kale waxaa ku habboon baa leeyahay jirkooda inay cunaan malayga iyo digaagga iyo ukunta iyo waxyaalahan borotiinka ah. Sidoo kale waxaa ka soo baxa dadka buurbuuran waayo stress kuma qabto, borotiin badanna way cunaan. Haddii aan eegno xanuunada ugu badan oo ku dhaca waa xanuunada maqaarka, dadkan isxoqa, sidoo kale xiiqda, neefta faraha badan sida kolestaroolka. Xanuunadan ayaa aad ugu badan dadkan noocoodu yahay dhiigga owda. Haddaba waa maxay shaqooyinka ku habboon dadkan? 1. Dadka siyaasiyiinta ah dadkan ayuu ka soo baxaa. Sidoo kale dadkan suuqgeynta ayaga ayuu ka soo baxaa waxaan la yidhaahdo marketing, sababtoo ah waa dad aad u furfuran. Tusaale ahaan qofkan marketingka ah waa qof war badan oo la rabo inuu ka dhaadhiciyo qofkan fikraddiisa ama waxa uu doonayay inuu u soo bandhigo. Noocyada dhiigadan aan ka soo hadalnay waxaa jiro faracyo hoostaga sida A-, O-, B-, kuwaasna mar kalean ka soo hadlaynaa. Haddii aad jeceshihiin inaan ka soo hadalno kommentiga noogu soo qor walaal adoo mahadsan. Soo gudbiyaha barnaamijkan waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.